السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين باخيارتانو جعل لها وحل سو غاري امينتي ان هودا idin soo marin jirnay war waxaan idin ka haynay deegaanada ay Soomaalidu degtiyo wariba caalamka intiisa kale warku waxa idin kaga imanaya xarunta guud ee VOS News ay ku leedahay gudaha magaalada Hargeysa. warkan haduu Rabbi ogolaado waxa idin la socodsiinaya anigoo Caawil Burcaawiya. qodobada wararkayga kuwada ugu door karoon lana waxa kamida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa tacsi tiraani yaalaha u diray dadkii maalintii shalay ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho. xisbiga mucaaradka ee u ciido war saxaafadeed isna soo saaray ayaa dhankiisa tacsi tiraan yaalaha u diray dadkii maalintii shalay ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa saaka waxa laga dhoofiyay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay maalintii shalay egas kantarool afgooye magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Mohamed Umar ayaa isna tacsi tiraan yaalaha u diray dadkii maalintii shalay ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqday cisbitaalka Urdugan halkaas xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo dad maalintii shalay ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga habeenimo kuwoodii ugu door korona iminkii haatan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada.